madaxda BSN oo ku foogan ka warhaynta iyo baraarujinta bulshada reer Jabuuti ayaa booqday xaafadda aadka u dhiban ee Buldhuqo ee ku taala nawaaxiga xaafad weynta Balbala ee Sabadka caasimadda Jabuuti. Buldhuqo waxay ku suntan tahay dhacdadii foosha xumayd ee loo geystay 21kii bishii 12 sanadkii 2015 taasi oo lagu waayay naf iyo maalba. Intaasi waxa uu dheer dhibaatooyin kale oo joogto ah oo ay la nool yihiin dadka reer Buldhuqo. Reer Buldhuqo waa dad aad u sabool ah ay ku habsatay shaqo la'aan baahsan, waxayna u badan yihiin dad muruqmaal ah. Shaqooyinkii yaryaraa ay heli jireenna waxaa kala baxay dad yow meelo kale ka yimid, siiba dalka weyn aynu deriska nahay iyo kuwa qaarado kale ka yimidba. Reer Buldhuqo ma helaan biyo ku filan, baad ku filan, waxbarasho ku filan iyo caafimaad toona. Ma helaan koronto iyo laamiyo midna. Gaadiidka dadweynaha sida basaska ama bajaajka ma adeegsan karaan, sababta oo ah nooli aad u qaali ah oo ina awoodi karin ayay ka rabaan. Dadka ku nool Buldhuqo jiilaalkii waa u dhaxan iyo kaneeco, xagaagiina waa u cadceed iyo haraad joogta. waxaa taa u raaca hanjabaad iyo guryo burburin joogta. Habeen walba waxa ay ku seexdaan walwal iyo walbahaar, iyaga oo isweydiiya barri talow nabad miyay idinku waa bariisan mise cagaf iyo carfiidad ayaa idin geli. waa su'aal maalin iyo habeenba dul hoganaysa ayay ku yidhaahdeen madaxda BSN. Dhibanayaashu waxay carabka ku dhufteen in booqashadii madaxda BSN wax yar ka hor ay soo mareen saraakiil ka tirsan dawladda uguna hanjabeen in la burburin doono. Burburinta waxa u dheer in uusan jirin qorshe meel lagu dejinayo balse ay noqon doonaan dibadmeer. Runtii reer Buldhuqo waxay ku jiraan nolol cadaaban. Waxa isweydiin leh haddaba Buldhuqo maxay galabsatay ee sida tan loogu gelayaa.